بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. mahadoo dhan allah subxaana wa tacaala ayay u sugnaatay. waxaan rabaa maanta inaan ka leergareeyo aman dadka soomaaliyeed u caddeeyo waxaa ka jira magaalada beledweyne, khaasatan dadka reer hiiraan ama ku nool degmada beledweyne. waxaan rabaa bal inaan kumbulokeyd baa ayaa laga dhigaya inaan kaleer uga dhigo. hay-adaha qaramada midoobey ama NGO-ga internationalka ah boolisigooda ama shuruucda u degan waxaa ka mamnuuca nasiib wanaag ma haya hadda artikelka qodobka uu qorayo meeshuu macnaha ma hayo oo ma dhahayo 700 intaas, laakiin waan xasuustaa hay-adaha qaramada midoobe iyo kuwa NGO-ga internationalka waxaa xaaraan ka ah oo sharcigoodu diidaya qof madax ah oo institution dowladeed ku jira ama madax ha u ahaado ama ha ka mid ahaadee in la siiyo mashaariic horumarineed. wuu ka hor imaanayaa boolisiga hay-adaha qaramada midoobe ama kuwa internationalka NGO-ska ka mid maaha. waxaa dhacday 2 nin oo isla dhalatay oo haddii loo baahda magacyadooda hebel iyo hebel aan dhahayo adinkuna aad garanaysaan. ninna uu yahay full corneyl oo militariga soomaaliya ka mid a, ninna uu yahay generaal oo uu ka mid yahay uu ka madax yahay stateka hirshabeelle ciidamadeeda booliiska, oo hooye aabba isku dhaleen ayaa mashaariicdii World Bankigu bixinayey ee laga fulinayo gobolka hiiraan ayaa mashruucii ugu weynaaye boolo barde mid baa qaatay, kii beledweynena mid baa qaatay. waana 2 nin oo institutionka ka mid ah oo midna military yahay midna boliis yahay. militariga federaalka soomaaliya ayuu full corneyl ka mida waa. waxaan la wadaagay hay-adaha qaramada midoobe khaasatan bangiga adduunka World Bankigaan la wadaagay yani arrinkani muxuu yahay. waxaa intaa sii dheer ninka generaalka ah ee mashruucan qaatay wuxuu kandadeed u yahay xilligan kala guurka ah inuu hoggaanka stateka ugu sarreeya ka mid noqdo oo ama ku-xigeen noqdo ama fasti noqdo madaxweyne noqdo ayuu kandadeedu yahay oo ord ugu jiraa. lacagta halkaa marka la rabo inay gasho adeeg bulsho oo development ah horumarin ah waxaa halkaa ka cad inaysan adeeg bulsho aadine jeeb qofeed ay ku dhacayso. annagoo taa ka duulayna bangiga adduunka ayaan la hadalnaa niri tan iyo tan iyo tan iyo tan qaynuunka sharciga qaramada midoobena waa ka hor imaanaysaa, adeega bulshadana waa ka hor imaanaysaa. World Bank asaa go-aan gaaray, warqad qoraalow u soo diray oo mashruucii ku joojinayo. saasay ku timid horto arrintu. waxaan rabaa oo kale inaan ka leergareeyo aniga hadda xil kama hayo gobolkan. shalay madax baan ka soo ahaa, mashruucaana anaa dalbay, dadkii dalbayaan ka mid ahaa. madaxweyne maxamed cabdi waare ayaa guud ahaan dalbay, laakiin markay noo yimaadeen waan la fadhiisannay sababo badan oo fududaynaya in mashruucaasu soo degdego ayaanu ka qayb qaadanay. waxaan xasuustaa markii sarfeega la samaynayey howlgalan waxaan uga jiray degmadaas bariga
hiiraan soona maxaas matabaanan ka tagnay eeriya matabaan iyo maxaas u dhexaysa ayaan howlgal u joognay waxaa ila soo xiriiray wasiirka howlaha guud iyo wasiirka tolowkee ahaa wasiirka biyaha macdintii biyaha inay ahaan baan jeclaha oo sarfay samaynaya ayaa yidhi waxaan u baahanahay security anaa markaa xafiiska fadhiya yacni waxay noqotay siyaabo badan inaan sacrifice u samayno dadkan shalana sacrificea nafteenaan baxar u dhigayno maantana inaan baxar u dhigaan diyaar u ah mana ka kaftamo wax ayaga horumar u ah oo adeeg bulsho ah oo xabad sharootaho halkaa la saara allabaha ka dhigee xabad sharoota ah qof walaxuu ka qaday karo oo reer hiiraana weligayna kama hor iman haddana kama hor iman doono waa leegu been abuurayaa waana marin habaabin bulsho cali jiitaa isbaara u taallaa waa been been weeye waa been aniga isbaara iima taal xaashaa lilaahi nin odayahaan ahay nin madaxda dalka ka mid ahaan ahaa hadda lafteedaan nahay madaxda dalka ka midna shalana ka soo midaan ahay haddii alla idmana ka mid baan noqon doonaa waxa laakiin laygala dagaalamaya waa aqaanaa baroorta urgiga waa ka weyn tahay maalinta walbangey anugu aan wada hadalnay 3 bil miya mise 4 bil waa laga joogaa maxaa hadda qaylada keenay 100 saacadood gudahood 100 saacadood ka hor baan u malaynayaa ayaan soo dhigay warqad inaan musharax u ahay haddii calaf ii galo stateka inaan rabo inaan u ordo madaxdiisa sare madaxweyne inaan raadsano ayaan soo dhigay se waxaanaa bilowday iyo khayle iyo orod iyo dagaal waxa horta laysku dabaqayo waa arrinkaa aan islahayn war anugu isbaaraystana maahe mana noqon doono da'deedna ma joogo waa wax aniga kredhitkeyga lagu garaafaynayo waan fahmi karaa dadka reer hiiraan ama soomaaliyeedna saas iyo beesha caalamkuba saas inay u fahmaanaan rabaa haddii qofku wax dhibsado waxa ugu macquulsan uu sameeyaa maxay waa inuu dacwoodo soo ma dacwad weeye war anugu markaan arkay qaladaadka jira iyo sadbursiinada jirta iyo ku tagrifalka ciddii fanka bixinaysaan su-aal weydiiyey su-aashina way ka garaabeen taasi way caddaynaysaa isbaaro iyo in la yidhaha war waxaanu maxay yihiin laba macnay kala leedahay saasii loo fahmaan rabaa hadda labadii mashruuc ee kale ee ka socota gobolkan warqad baa laga qoray yaa warqadda qoray institutionkaa qoray maamulkaanaa qoray ciddii ku soo amartana waa garanaynaa maayarka magaalada beledweynaha qoray yah cidda ku soo amartayna waan garanayaa haddii loo baahdana waa sheegaynaa haddii loo baahdana waa caddaynayaa waxa loo qorana waa borofakaarayn in la borofakaareeyo wey in wax la borofakaareeyo aniga waxaan leeyahay horta mashaariicda hala fasaxo labadaa mashruuc bangiga adduunkuna ma haysto cid kaloo haysataana ma jirto bangi waxaan u malaynayaa labada mashruuc midna nin reer beledweyneah ayaa kambani kiisaha ku guulaystay midna kambani qayb ka mida hurmuud maxaa la yidhahdaa buruud miyaa la yidhahda ayaa ku guulaystay waa dad soomaaliyeed waa dad shacab oo ganacsato ah meel farta laga geliyo ma leh laakiin haddii generaal kandadeed u ah president inuu u ordo hadduu mashaariicdii qaato dee dadka reer hiiraan ma laga waayo qof wax garanaya ama dadka kaloo soomaaliyeed qof wax garanaya oo mashruuc qaadan kara miyaa laga waayo war arrintood saas in loo fahmaan rabaa maamulkii waxaa saxiixay ee aqbalay baa haddana ay dhahayo aqwaanu isbaariistaa tahay
bal mushkiladan daya arrinta horta saas in loo fahmaan rabaa waxaan mar labaad ku celinayaa oo nasiib darro ah war jaalanji waa la ysku sameeyaa oo siyaasadda xoogaa waa la ysku riixriixaa laakiin wax runta xoogaa u dhow baa la sheegaa wax xoogaa runta u dhow baa la sheegaahe yacni siyaabaha qaarkood waa ceeb weeye wuxuu waa dhammaanayaan biritaa la kaftamayaa asxaab baa la ahaa waa la wada shaha cabbayaaye ceebaalkaa la yska dhaafo iyo calool qudis